Bismillahirrahmanirrahiim. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada walaalaha sharafta badan ee ku xiran janalkeena ka xuruuf fakhriga. Haddii eebuweyne qadaro maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamij ku saabsan faa'iidooyinka uu leeyahay bini'aadamka qaraha. Qaraha waxa uu ka mid yahay qudaarta ka baxda dalkeena Soomaaliya. Qaraha boqolkiiba 92 waxaa ku jirto waa water. Qaraha waxaa ku jira nutrients kala ah potassium, magnesium, vitamin A and C. Halkii koob oo qara ah biyo qara ah waxaa ku jirto chloride oo 46 ah, fiber 11.5 oo garaam ah, protein 0.9 oo garaam ah. Vitamin A 5% of daily volume-kiisa. Potassium 4% daily volume-kiisa. Vitamin C 14% daily volume-kiisa. Magnesium 4% daily volume-kiisa. Faa'iidooyinka uu leeyahay bini'aadanka waxaan ka soo qaadanaynaa wuu tiro badan yahay balse anaga had maanta waxaan ka soo qaadanaynaa 6 faa'iido. 1. Bini'aadanka wuxuu ka caawiyaa inuu fuuq baxa. 2. Waxaa ka buuxa nafaqooyin. 3. Waxa uu yareeyaa caabuqa kansarka. Waxa uu yareeyaa xanuunada wadnaha. Waxa uu yareeyaa walwalka iyo bararka jirka. 6. Waxa uu u fiican yahay maqaarka. Qaraha waxa uu qani ku yahay citrulline. Qaraha waxa uu taageero u fidiyaa garaaca wadnaha. Qaraha waxa uu hoos u dhigaa cadaadiska dhiigga iyo kolestaroolka. Qaraha waxa uu ka kooban yahay isku dhisyo ka caawin kara yareynta caabuqa, kuwaas oo heerkoodu sareeyo lala xidhiidhiya xanuunada bada. Nafaqooyin dhowr ah qaraha ku jirta ayaa kor u qaadi karta caafimaadka timaha iyo maqaarka. Fiber iyo biyaha ku jira qaraha ayaa lagu yaqaanaa in ay caawiyaan caafimaadka dheefshiidka ayaga oo taageeraya dhaqdhaqaaqa saxarada. Intaas waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii qaar ka mid ah ka soo jeedinaynay qaraha faa'iidooyinka uu leeyahay bini'aadanka. Intaa mid lacana ku kulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah. Hanaga hilmaamin share, comment iyo subscribe-ka waxay inoo tahay dhiirigelin.